السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا maanta waxaynu kaga hadli doonaa 10 tallaabo oo aad ku xoojin karto kuna kordhin karto iimaankaaga. Haddaba ku soo dhawaada muuqaalka. kow Towbadda. Bini'aadanka waxaa ka dhaca dambiyo iyo qaladaad sababtoo ah ma nihin kuwa dhammaystiran. Haddaba waa inaad mar kasta alla dambi dhaaf weydiisataa si dhab ahna ugu toobad keentaa kana fogaatay inaad dambi samayso. 2 Salaada. Tuko 5 salaadood si joogto ah. Ilaali waqtiga salaada. Baro salaada axkaamteedana. 3 Quraanka. Akhri Quraanka, bara micnihiisa, xikmadiisana fahan. 4 Xuska Alle. Bar carabkaaga dikriga Alle, kuna celceli markasta kelmadahan: subxaanallah, walxamdulillaah, wallaahu akbar, laa ilaaha ila allah, laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim. 5 Alle oo la tala saarto. Eebbe waa naxariis badane, sidaa darteed waa inaad tala saarataa markasta, naxariistiisana aanad ka quusan, markastana aad khayr ka rajayso. 6 Ducada. Alle salawaatullaahi wasalaamuhu calayh oo aad barido waa mid ka mid ah siyaabaha loo xoojiyo iimaanka. Alle waa ka jawaabaa duco kasta oo addoonkiisa ka timaada. 7 Cilmiga diinta ah oo la barto. Guud ahaan cilmigu waa nuur, waa fure. Diinta Islaamka oo aad barataa iyo Quraanka Kariimka ah oo aad barataa, sidoo kale siirada Nabiga iyo kutubta kale oo aad barataa, waxay qofka ka saarayaan jahliga, waxay xoojinayaan qalbigiisa, waxayna ku hogaaminayaan inuu kala fahmo xaqa iyo baadilka, iyo in aan la qaldi karin wadada Alla naga leexin karin. 8 Soonka sunnada ah. Fadli badan ayaa ku sugan soonka sunnada ah. Qofka awooda inuu soomo maalmaha Isniinta iyo Khamiista wuxuu ka helayaa faa'iidooyin badan. Rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxaa la weydiiyey soonka maalinta Isniinta, wuxuu yidhi: waa maalintii aan dhashay, waxyigana laygu soo dejiyey. Nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid sooma Isniinta iyo Khamiista. 9 Xasuusta dhimashada iyo aakhirada. Haddii qofku xasuusan yahay dhimashada iyo aakhirada, wuxuu ogaanayaa macnaha dhabta ah ee adduunka loo joogo iyo inuu u shaqaysto daarta dambe ee lagu waarayo. 10 Camal wanaagsan. Ku dadaal inaad joogtayso samaynta camallo iyo ficillo wanaagsan ilaa ay dabeecad kaa noqoto. Hal camal oo wanaagsan oo aad samaysaa wuxuu kugu hogaaminayaa mid kale oo wanaagsan. insha allahu tacaala waxaan ku leeyahay muuqaalkan muuqaalka xiga ayaa inoo balan ah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. أرى الدنيا